madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa xalay shir gudoomiyay kulan degdeg ah oo la qaatay xubnaha golaha wasiirada ee ku sugan Galkacyo iyo la taliyayaal madaxweyne oo sare. Shirka ayaa looga hadlay xaaladda uu dalku marayo, gaar ahaan tallaabadii baarlamaanka Soomaaliya uu ku kacay 25 bishan ee ku aadanayd xilka qaadista ra'iisul wasaaraha xukuumadda Xasan Cali Khayre. Madaxweynaha ayaa sheegay in wixii ka dhacay baarlamaanku ay sharci darro ahaayeen. baarlamaanka wixii shalay uu sameeyay waxa muuqanaysa inuusan marin habraacyadii ra'iisul wasaaruhu xilku waa meerto shalayba waa la magacaabay baarlamaanka ayaa ogolaaday baarlamaankuna awood u leeyahay inuu ka qaado laakiin wixii shalay meesha ka dhacay waxay ka hor imaanaysay dhammaan shuruucdii dalka u deganayd iyo habraacyadii lagu yaqaanay marka la rabo in la eedeeyo ra'iisul wasaare in xukunka looga qaado waxaa iyadoo oonan eedayn loo soo jeedin iyadoo ajandaha aan lagu darin iyadoo oo aanan loo codaynin ayuu gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu ku dhawaaqay in uu xilkii uu ka qaaday waxaase cajiib ah oo ka sii daran in madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ku celcelin jiray waxaan ilaalinayaa dastuurka uu si degdeg ku aqbalay arrintaas sharci darrada ah oo ay muuqato in uu buriyay qodobo dastuuriya oo runtii dalka u deganaa oo la oran karo dastuurkii uu ku xadgudbay waxaa intaa ka daran isla waqti yar oo kooban madaxweyne ra'iisul wasaarihi oo dhuuso mareeb ka tagin inuu wareegto ku soo saaray in uu xilka sii hayn doono ra'iisul wasaare ku-xigeenka wuxuu madaxweynuhu si cad ugu tuntay qodobka 103 ee dastuurka oo cadeynaya marka uu ra'iisul wasaaruhu xilka laga qaado ama uu iska casilo in uu xilka sii wadayo ilaa uu la wareegayo qofka kale ee la soo magacaabay inuu wareegto uu xilkii uu ku wareejiyo ra'iisul wasaare ku-xigeenku iyadana waa qodob dastuuri ah oo la dumiyay oo runtii halis keenaysa marka arrimahaas la isku daro haddana wuxuu ku cadeeyay in uu ra'iisul wasaare ku-xigeenka hadda uu magacaabay oo xukuumadda dhacday ka mid ahaa uu sii wadi doono shirkii dhuuso mareeb isagoo ilaalinaya xeerka doorashada iyo dastuurka waxa ugu weyn oo xubnaha dowladaha federaalka ka mid ah ay dooda ka qabeen waxa ka mid ah sharciga doorashada ee hadda baarlamaanka oo ansixiyay oo runtii mugdi badan ku jiro una haboonayn in doorasho qof iyo cod lagu galo oo marar badanna Puntland mawaqifteeda ay hore uga cadeysay marka inta la isku soo horiyo waxa aad u muuqanaysa madaxweynuhu inuusan diyaar u ahayn inuu dalka doorasho geliyo madaxweynuhu inuusan diyaar u ahayn inuu dalka si dimuqraadi u maamulo wuxuu cadeeyay in uu wareegto uu rabo inuu ku maamulo wuxuu cadeeyay inuu sharciga dastuurka uusan ixtiraamayn oo uu ku tumanayo mawaqiftaas marka aan darsnay dowladda Puntland waxay shaki gelinaysaa ku dhaqanka xeerarka iyo dastuurka dalka u degan madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa ku sababeeyay xilka qaadista ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre in madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya uusan daacad ka ahayn heshiiskii magaalada Dhuuso Mareeb ay ku gaareen madaxda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah inuu fuliyo waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed u cadeeyo aniga oo dowladda federaalka ah muddadii aan hadda wada shaqeynayno ay aad u fiicnayn kalena saaraynin madaxweynaha iyo prime ministerka laakiin muddadii hadda aan galmudug joogno waxa ay muuqanaysay prime ministerku inuu diyaar u ahaa wixii lagu heshiiyay inuu fuliyo uu nagala hadlayay waliba waxyaabaha ay sida u fuli doonto uuna u hayay in dalku doorasho uu gaarsiiyo waqtigeeda ku dhacda oo suuragal ah oo u muuqata mid qof walba uu filayo ah doorasho dadban inuu qanaacadaas qabay xilka sida sharci darrada looga qaaday oo la yiri waa laga qaaday waxay uu sababsaday in uu wixii madaxda dowladda federaalka iyo dowladda Soomaaliya ay dowladaha xubnaha ka ay ku heshiiyeen inuu daacad ka ahaa inuu fuliyo cidda ka qaaday oo arrinta ka dambeysana waxay u muuqanaysaa wixii meesha laga heshiiyay inaysan daacad ka ahayn oo ajanda kala wadatay arrintaas waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan aan u cadeyno in ay dowladda Puntland la tashi badan oo aan sameynay xogogaalnimo badan oo aan ognahay inaanan raalli ka ahayn sida wax u socdaan أنا كدي إنه ضلك ماشي وقصة عضو أوكي كرته كالسويدي لديسي دولدي جدي سعود كده لديسي وناجي لجشقينا إن الداوع وين وكينته مجد جلسوا ضلك ماشي وكوجهين
madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa u cadeeyay dadka Soomaaliyeed in Puntland raalli ka ah in sida wax u socdaan waxaana uu ka digay in qaabka uu wax u wado madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay dhaawac u keeni karto kalsoonidii shacabka Soomaaliyeed isla markaana ay mugdi galin karto jihada uu dalku ku wajahan yahay. arrintaas marka waxay horseedi kartaa Soomaaliya inay khatar ku soo wajahan tahay. waxaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ugu baaqaya in marxaladan xasaaska ah loo fiiriyo sida dadka qaybtiisa u eegayaan si ka mug weyn. waxaan ka xumahay siyaasiyiinta qaybtood inay u qaateen ra'iisul wasaare tagay iyo ra'iisul wasaare la keenay oo xusul duub loogu jiro cidii noqon lahayd. arrintu ma aha ra'iisul wasaare baxay iyo ra'iisul wasaare yimaado waa ay dhici jirtay haddii hore u dhici lahayd marxalad aan xasaas ahayn dhibna ma keenteen. laakiin marxaladan hadda waxa ku soo beegmay waa marxalad ka duwan aragtidaas. marka waxaan ugu baaqayaa dhammaan siyaasiyiinta dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah iyo mas'uuliyiinta dowladaba wixii dhacay waa dhaceen caanadaatay dabadaa la qabtaa. khaladka ciddii gashana inay qaadato caqligu inuu soo noqdo dalka meeshu ku socdo in tala intii hore ka badan la geliyo. waan ka xumahay niyaddii wanaagsanayd ee dowladaha iyo dowladda Puntland ay haysay in dhabar jabin lagu sameeyo. waxaan madaxweynaha dowladda federaalka ah baaq ugu dirayaa inta dhiman inuu dalka u naxo oo u turo oo uusan gaarsiin meel aan hadhow laga soo qaban karin. caalamku uu dhagaha ka laabto bulshada Soomaaliyeed ay ka niyad jabto dowladuhu xubnaha ka ah ay aamin ka baxaan dowladda federaalka shuruucda iyo dastuurka dalka la ixtiraami waayo qof walbana ay uu sameeyo sida la haboon dalkana dib loogu celiyo xilliyadii aan shuruucda iyo dowladnimada ka jirin oo u sababta habkii loo dhaqmi jiray inuu sharcigu qof walba gacantiisa ku qaato. Jaan Cabdiraxmaan Axmed warbaahinta dowladda Puntland Garowe.